marka dadka qaarkood alqaabtan xunxun ee aljaamiya iyo almadkhaliya iyo jadiidiya iyo salafiyiinta ay ku sheegayaan ee salafiyiintu ay inkiraan yidhahdaan anagu waxaa ma nihin raallina kuma nihin in lagu sheego oo sababta loo diidaya waa maxay sababta loo diidaya laqabkan waxaa loo isticmaalay litanfiir can ilxaq marka sanadha waxa odhanaya idinkuba dadka waxaad ku sheegtaan magacyo aanay la bixin marka tiraahdo tusaale keena waxaad ku tirahdaan fulan waa xisbi de xisbi isagaaba sheegay inuu xisbi yahay xisbiyaduna ay bannaan tahay wuxuu isagu sheeganaya haddaan u nisbaynay ma khalad baan samaynay anagu wasfigan inuu yahay qof xisbinimada ogol oo ictiqaadsan bannaanideeda ama ku jiraba waa wasfi isagu uu leeyahy qirsan yahayba marka wax been abuuran u nisbaynay maaha waxaa kale odhanaya waxaad ku tidhaahdaan saruuri firqa saruure la idhaha baad sheegtaan waxaan leeyahay magaca saruuriya horta salafiyiintu may bixin youtube-kay ku jirtaa iminka haddaad ka eegto maxamed saruur zayn alcaabidiin ilaah u naxariiste oo magacaa laga wareysanayo wuxuu sheegaya ninkii u horreeyey magaca ugu yeedhay inuu ahaa nin masri ah oo madaxdii waaweynada ee ikhwaan muslimiinka ka mid ah oo manaacu lqataan la odhan jiray maxamed saruur oo ah kan dadkan loo nisbeynayo la leeyahay saruuriyo magacan ma ogol yahay mise uu diidan yihi wuu ogol yihi wax dhiba uma arka buu leeyahay anugu in saruuriyana lagu dhahdo isagaa sidaa in badanna waynu ku celcelin waxaan len waar hooy maxalu nisaaca ha ka bixin xaqiiqada abbaara soomada odhan jadiidiyati haatu jadiid bayinu jadiid amaa haddii laqabkaa cidda loo bixinayo naanistaasi aanay ogolayn wasfun fiihim mutaxaqiqun fiihimna aanu ahayn ama ha noqdo aasaase loo nisbaynayo ama ha noqdo waxa weeyaan caqiido ay ku sugan yihiin tanaabus bilalqaabkii ilaahay diiday bay markaa noqonaysaa waxaan masaladaa u keenay marka dadka qaarkood alqaabtan xunxun ee aljaamiya iyo almadkhaliya iyo jadiidiya iyo salafiyiinta ay ku sheegayaan ee salafiyiintu ay inkiraan yidhahdaan anagu waxaa ma nihin raallina kuma nihin in lagu sheego oo sababta loo diidaya waa maxay sababta loo diidaya laqabkan waxaa loo isticmaalay litanfiir can ilxaq waxaa odhan karaa maxaad ku diidantihin soo maha waxaanu ku diidannahay xaqa aanu dadka ugu yeedhayno aanu farayno in dadka laga eriyo oo lagala dagaalamaa magacan loo bixiyeyba ee magac ammaan looga jeeda iyo wax xaqa dadka ugu yeedhaya oo kusoo dhaweynaya maaha sababtaan u diidayna waa taas marka sanadha waxa odhanaya idinkuba dadka waxaad ku sheegtaan magacyo aanay la bixin marka tiraahdo tusaale keena waxaad ku tidhaahdaan fulan waa xisbi de xisbi isagaaba sheegay inuu xisbi yahay xisbiyaduna ay bannaan tahay wuxuu isagu sheeganaya haddaan u nisbaynay ma khalad baan samaynay anagu wasfigan inuu yahay qof xisbinimada ogol oo ictiqaadsan bannaanideeda ama ku jiraba waa wasfi isagu uu leeyahy qirsan yahayba marka wax been abuuran u nisbaynay maaha waxaa kale odhanaya waxaad ku tidhaahdaan saruuri firqa saruure la idhaha baad sheegtaan waxaan leeyahay magaca saruuriya horta salafiyiintu may bixin youtube-kay ku jirtaa iminka haddaad ka eegto maxamed saruur zayn alcaabidiin ilaah u naxariiste oo magacaa laga wareysanayo wuxuu sheegaya ninkii u horreeyey magaca ugu yeedhay inuu ahaa nin masri ah oo madaxdii waaweynada ee ikhwaan muslimiinka ka mid ah oo manaacu lqataan la odhan jiray culuum lqur'aanka iyo mutakhasis ku ah oo mualafaadna uu ku leeyahy waa raggii ikhwaaniyada aada ugu faafiyey fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya awal shaksi oo magacaa noogu yeedhay wuxuu ahaa buu leeyahay sheekh manaac alqataan maxamed saruur oo ah kan dadkan loo nisbeynayo la leeyahay saruuriyo magacan ma ogol yahay mise uu diidan yihi wuu ogol yihi wax dhiba uma arka buu leeyahay anugu in saruuriyana lagu dhahdo isagaa sidaa leh bisawt wasuura waxaanu anagu magaca ula bixi weynuun buu leeyahy magacyadu inay bannaan yihiin baanu qabnaaye si muslimiinta aanan magacyada ugu cidhiidhin kula aha linuwafir alasmaa cala lmuslimiin
laba maqaal lagu qoray oo ciwaan uga dhigay as-saruriya sheekha firqada loo nisbeeyay lafteedu marka hadii jeeraale dadku i'tiraadaad aan baxthi ku dhisnayn iyo taxqiiq ay iska itlaaqaan maanta la xujada u badan ee dadka badankooda ay waxa idinkuba saasaatira idinkuba saasaati sidaan yidhi hadday sax tahayna la i'tiraad calayha sooma bushid male hadday khalad tahayna ma khaladkaga daliil ku noqonaya oo daliisharis marka adiga mas'alo lagu i'tiraado difaacaagu yaa noqon adiguba saasaatay adiguba waad ku jirtaa ee mas'alada ka hadal waxa tira mas'aladu waa sax ama waa khalad oo aan ka noqonaya waan iska deenayaa way mas'aladana ku saabsan jaamiye iyo madkhaliye iyo waxan waa dacaayad ay xisbiyiintu u sameeyeen si ay dacwo salafiya dadka uga dagaalamaan wa illa su'aal baan idin weydiiyay ilaahay baan idinku dhaarshay wadaadada Soomaalida meelaan ka hadlaya iyo culimadii qaar ay mashaayikh u ahaayeen mashaayikhda ay sheegayaan qaarna ay arday wada ahaayeen qaarna ay ardaydooda ahaayeen isku beledna ahaayeen isku dacwana ahaayeen keeba waa qoon badan Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih Al-Haydan Sheikh Al-Fawzan Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad keeba waa qoon badan culimada Soomaa طيب yeenu rumaysanayna inagu ma xisbiyiintan magacyadan dicaayada u isticmaalaya liyunfiru biha an ad-da'wa as-salafiyya مثل هؤلاء العلماء culimadaas waxay yiraahdeen hadaba youtube ku jiraay eega waxay sheegeen inay tahay firya inay tahay shay muxtarac dadka qaar kood sameysteen si ay ahlul xaq dadka xaqooda ugu hor istaagaan uga tanfiiriyaan maxaa rabiic al-madkhali iyo maxamed amal al-jami loogu nisbeynaya salafiyiinta xisbi iyagoo ay aasaaseen ba ay salafiyiintu xubne ka yihiin sababtaas loogu nisbeynaysa maxamed saruur oo kale isaga qirsan inay tayaar yihiin tanziim yihiin bisawtihi wa suratihi marka tayaar cidii isaga raacda tayaarka iyo tanziimkana kamid noqoto de waa loo nisbeynaya haddii la raado ha taas waxay u baahan tahay xujo qulaha tubranakum in kuntum saadiqiin annagu ilaahay ka waxaan leenahay ma ogin haddii jiro ay cadaato inay wadaadadaasi xisbi axzaabtan la mid ah sameysteenna natabarra min hada alxisbi kama natabarra min tilka alaxzaab xisbigaasi hadduu sugnaado uu jiro waxaynu uga bari noqonaynaa sidaynu uga bari noqonayno axzaabtan kale oo xisbiyo marka xagga xisbinimada laga eego inama kala xigto waracad ma waxa la leeyahay caqiide iyo manhaj cusub bay bilaabeen xisbi ay asaaseen bayadan xubna ka noqonay caqiidada iyo manhajkaas aad aaminsantiino sida jahmiye jahd ibn safwan loogu nisbeeyay ayaa idinkana cidii caqiidadiina iyo manhajkiina asaastay loogu nisbeeyay haddii la leeyahay arrintu waa taa waxaan leenahay iyadana qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin caqiidada annagu aan aaminsanay wadaadadaasi bilaabeen noo sheega caqiido aan kitaabka iyo sunnaha iyo aqwaashii salafka iyo saxaabada aan ku sugnayn oo labada wadaad ay la soo dariyeen oo aanu aaminsannahay haddii aad sugtaan natuubu ila allah wa natabarra'u minha ilaahay baan uga toobadkeena waana ka bari noqonayna mana ogin annagu محمد أمان الجامي مع عقيده لسه دري في باب الإيمان عقيدة السلف كان هين القصان قرعان في باب القدر في باب التوحيد العبادة في باب الأسماء والصفات في باب الإمامة لا نعلم ذلك لا نعلمه إلا مقررا لعقيدة السلف انت سينكوغني علمنا وقام خاتك عين وكذلك شيخ ربيع qadiyada in la dhaawar muslimiintu inay axzaab u qaybsamaan ma banaano ilaahay baa diido rasuulka diido muslimiintana dib bay ku tahay ma iyaga la soo dariyay abadan waa qadiyad kitaab ku qoran wa'tasu bi hablillahi jamii'a wala tafarraqu idinkuna waad qiraysan inay tafarruqtay waa qadiyad ku qoran xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigu leeyahay alaykum bil jamaa'a ya xadiis waxa weeyaan la midka ah
xagga culimahaan marka la eegana waa qadiyad culimadu weligood bay ka hadli jireen وتحزيب المسلمين موافقات كالشاطبي bay ku qorantay inay banaanayn ibn taymiya intaas oo mawduuc kaga hadlay الشوكاني رحمه الله احزابta المعاصرka iyaga ba qirsan in ay tahay waliyatu القرن الرابع عشر qarniga 14aad inay dhalatay wixii ku horeeyay jiray markii ay dhalatayna caalim walba markii warkeedii xaqiiqadeedu uu soo gaaray buu inkiray waa kan Sheikh al-Albani إنكار الألباني الحزبية إنكار محمد أمان الجامع أو الربيع الحزبية ما الفرق؟ هذا فرق وياه ابن باز ساس وكذا شيخ ابن عثيمين شيخ فوزان شيخ عبد المحسن العباس شيخ صالح الحيدان شيخ ابن غصون ابن قعود أي ماذا وين كون انتي كون نول بله wax farqi ma jiro in badan way ku celcelin waxaan la waarhooy محل نزاعها كبحين حقيقة أبارة ثم يقول الجديدية هاتوا الجديد بينوا الجديد قاربا يسكو ديني كتشوابان مركز سيد هذين جديد كو حوية السلفية دي بعد اسكو كوبتين دوك السلفية دي أنا أشخاص كما أننا كوبين ترسان وهبل يهبل 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 بس السلفيين ما نعرف بل يوجد في الدنيا آلاف السلفيين لا نعرفهم ولم نسمع بهم الدنيا دوشيدا واحد شوقة السلفيين أننا بقل أرقنا سلفية وصف بين كوبين هنا وصف وعدي وصف قال بس سلفية عدي وصف قال خلافتنا السلفي ما بين لنا مركا دي حق بعض الله ده إن وصف قال غلط ضدات ترى وصف قالوا خلدي لكن إن القضية ده كوبيست النقالات ده وخلط قضية ده كوبيست النبي قال كوبي عدة أهل الحق والنبي قال عليه الصلاة والسلام يري وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واحد حقك كوبي لم يتضبط نوقر مرسين يقول النبي عليه الصلاة والسلام مركا كوبيست إن عد لغو كوبو وصف لحق ولا عدة وصف قال بقى أهل الحق وقضية النبي عليه الصلاة والسلام هراء الله وكذلك السلف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا كوبيست أساسي وشرت والله الله كواسنا وأهل السنة عدة وصف قالي عدة وصف قال خلافتنا وأهل البدع ويقولون قيب الصيلة سؤال كلام ويتالله يا شيخ كسته أما كل حزبين ومسألة سوق هذا السلفية بتكون كوبيس أما أهل السنة بتكون كوبيس سؤال بين ودينا وحلنا adigu ma waxaad aaminsan tahay dadka oo dhan muslimiinta oo dhan salafiyiin la shakka in oranayaan maya ay waxa ku soo arooraya raafilada ma salafiyiin bad ka aaminsan suufiyada noocyada kala duwan salafiyiin bad ka aaminsan bal ragga hadlaya in badan oo kamid ah ikhwaan iyo tabliiq baan salafiyiin waa aaminsaneen oo ahl bid'in yihiin ka aaminsan markuu dhaa سلفيين كما آمنساني دادك أورداني إن بان كآمنساني وحن لأنه هو أنت الديداني سو دا كوبيس دي الديداني أدوكو بكوتشا صالة أنا ديسيني جامعات دا نوحي سيد كوتشا ومسألة كهالله يوا أرضيات با اعتراضي وحي تري دادك أورداني هو السلفيين دادك محادوك القاد قادسة وحن كوري قاعدة دا ما يلتزامي سا ومكوش قيني سامر والبا رقاسي تري ها waxaan ku iri shabaabka ka war kuwaas waa khawaarij iga dabayt isagu soo durba qaar ka saaray markii hore waxa la dadku wada salafiin durba qaar baad ka saartay soo isbaarkiis marka cid aan salafiyada iyo ahlus sunnanimada aan cid ku koobahayn ma jirtaba min muwassi'in lidaa'ira wa mudayiq laha mid balaariya daa'irada iyo mid ciriiriyo kooba mid walo كوبيستا هي حصرها اعتراضا isaga laftiisana uu ku soo arooraya marka waxa la isku ceebeeyo maaha cid baad ahlus sunnanimada ama salafiyinimada aad ku koobtay oo cid aan ku koobahayn ma jirto ka suufiga dad weydiisay ahlus sunnah ya ahlus sunnah ya de ash'ariyada qaadiriyada ba ahlus sunnah kulli inta kalena waa dad luusan koobaya Soomaarkiis marka mas'alada hal la baaro hal laga hadlo horta yaa salafiyiina قضية ضد كلا نقاش لكن عيبها كدقين عيد قاربو أهل السنة كشيء أما السلفية كشيء عيد أن كشيء يعني ما ترتبه بل الإسلام لماذا ما الله يسوى العقلين
firaqan jira aanay isu wada ogoleyn oo qolo waliba cid bay muslimiin u yaqaanaan cidna inay muslimiinta islaamnimada inay ka baxeen ba u yaqaanaan marka waa qadaayaad u baahan marka koobaad ikhlaas iyo qofku inuu ilaahay daraaddi u hadlayo aakhira xaggeedana inuu eegayo oo dembi uu iska dhowrayo waa qadaayaad u baahan taxqiiq iyo u fiirsasho laakiin hadday tahay uun ku buuxi iyo sifo kasta oo xun oo dacwadda lagaga carari karo ku sheeg taa qofku uu ku aakhiro seegayaa